وحيكون مشغولين رجع يدور كمسيمين إننا نوحى لأننا قدر بدعاء إن أن نكون مشغولنا رجع يدور كمسيمين إسلام كانوا يقولوا ليه لا والله ترتم بالجلينا هذا بس إن أنت والله منه فيسيولوجي هبسميسن كإله دتك وأبوره أو قفك سوء أبورين منما هو spirituality قفك كان وحلا إيمانية لا بد قضب إن لك الدوّة مرك إتاجنت فيسيولوجي قبضنا سيدا إلهي وأبوره دتك إسكوميد معها رجع إسكوميد معها دمرك إسكوميد معها وحديعي كرت أدينا إلهي عاطفة وكوب بديه وحلقوه تلقى إناد مصنع ورشدين يدوح إنها تربية بالغو تلقى هل كان نينك الرجال الله تلقى إنه أنت شقي أو دب وصامرة أو سود جديد أو كانوا هذا بس كسي ما ودق مكرتان المهن كورهين تودا هذه شقادة دوتها وحرم ما تينا تفافلو بوغال كانت صدا وتن براها بلشده ميل كستود قشيد ما أنت وحا كاسو هربحيا قبر عمريسا كاسو هربحيسا مدبا وحا كعمريسا قاربا رقي فري كعمريا قاربا كوا قبا كعمريا قاربا عمريا أولين وقورسنبا أرغو مركي لسكو صد دوبي وذات كان با وحي يوردن كومبا كسو ردي بلا دو فيرسو دومركي مركي قربا سو غلين waxaa iskaga darsamay sida wadaadkan sheegayo labadaas jaha iskaga darsantay midda ilaahay uu ku abuuray inaad isku ninka adu naf leedahay asagu naf leeyahay oo deetaad ka simantiin iyo waxa iskaga darsamay wixii diintu idin kala xaribtay oo ahay adigu inaad nin tahay oo aad mas'uul tahay iyaduna ay dumar tahay oo kontalay tahay labad waxaas iskaga darsamay waa isku dhaxayaan waxay imaadeen wadan qurba ay imaadeen waxaa la yiri ninka iyo gabadhu way siman yihiin waa rungaalada xaqooda xaquuqdaana laga hadlay wadaadku wuxuu sheegaya laga hadlaya isku xaquuqatiin waad shaqaysan kartaa ونفو leeyahay nafaad leedahay waad neefsataa waa neefsadaa suuli baad gashaa suuli baa galaa waxyaalahaas oo dhan ninka waad ka simantiin laakiin waxyaalaha ka sinaakiina jira gaaladu xitaa dadka inay been u sheegayaan bal boqolkiiba 99 wadamada gaalada naagma madaxweyne ka noqoto maraykanka aad arkaysid naag maxay madaxweyne uga noqolaadahay baladan ku weydiinayaa sababta ma taqaanaa waxaan afka baarkiisa weeye qalbiga maaha marka dumarka nagi Soomaaliyeed qeyr Allah siiye wixii bay kala saari laayihiin maanta social media waxa ku badan cabashada ku badan maama milyuun baa tusbax furtay say uu furto uu furan yahay saaba soo daadanaya midin xumeeyo almid horta waa ka garaabaya ragga boqolkiiba konton boqolkiiba 40 damu wax wada fayow maaha nin xun waa ku jira sida dumarkaba qaar walwaalan ugu jiraan ayaa raggana sidaas oo kale qaar xun ugu jiraan inaad marka intii negative ka inta soo qaadatid aad intii positive ka ahayd adika leeyra ku aflagaadaysid waa wax wanaagsan maahan baashuna dumarow cadaawadiye naga noqon annaga de dumarka nagii baa tiin dumar kala dooni mayno annaguna raggiinii baa nahay haddii aad cabasho tabanaysaan oo raggii de afartii xabood soo martay xumaadeen kuwa wanaagsan baa jire walaal hadaalinde kan ku xumeeyay mid ka wanaagsan baa jira haddaad marka kii ku xumeeyay dabeecadda u lahay caqliga u lahay sidoo kuula dhaqmi jiray ad raggii Soomaaliyeed ku sumadid waa qalad walaasheeyay raggu isma lahan waxaan rabaa marka halkan dumarka naga rabaa halkan dardaar nuga jeediyo maalin dhaweed waxaan daaqad ka qabsaday gabar TikTok online ka oo live ku jirta gabadhaas Jarmalka joogta dumar badan bay fasaadinaysaa gabadhaas runta markii laga hadlayo waxyaalaha ay ka hadlayso dumarka qaar waxaa jira nagta wax loogu sheega qaatade markaad gabar yar oo mustaqbal doona oo wali aan guursan aad filin horana u shidid negative u shidid de gabadhi mustaqbal ay u baahan tahay difaac bay galaysaa raggii bay saska qaadaysaa mid kalena waa idin sheegaya gabar kasta oo social media soo gasha ee qaylinaysa ee ninkeedii caynaysa ee ragga Soomaaliyeed caynaysa ee aflagaadaynaysa nolosha ku fashilantay qof nolosha ku fashilmo weey markii gabadhu ay gabar tahay oo mustaqbal leedahay oo nin Soomaaliyeed ay u baahan tahay ragga ma aflagaadaydo kaanu markaa isku soo duuduubay waxaan ku nisbeeyay gabar kasto qaylinaysa sida maama milyuun oo kale iyo dumarka qaarkiis oo kale nolosha ku fashilantay qofkaas noloshu ku fashilmay waxa weeye marka anigu waxba ma haye kuwa waxayaan de burxaan la marinaya bala doo fiirso dumarka nagiibatiin gabdhaha nagiibatiin waynu jecelnahay qurbaa inuu nimid war walaalayaal daacad iska dhiga
dagaalka naga daaya raggu waa badan yahay haddaan afar xun aragtay afar wanaagsan raadide bilaa calaykum laakiin de wixii oo dhan ha ku sumadin maxaan maalin dhawood gabadha daaqadan ka qabsaday sheekadeedu waa inka dhex galaye iyadoo dood haydaan ka qabsaday ragga Soomaaliyeed bay saa u jafaysaa laba qodob bay ka dhiganaysaa laba qodob baa ugu muhiimsan waxay ka hadlaysay laba qodob baa ugu muhiimsanaay qodobka koowaad oo waxay ku leedahay qurbaha haddaad tagtid wadadaad ka baxdidba islaam faagan jiidayda ka soo horbaxaysa malad u fiirso faagankii gabadhan cunugay dhashay jiidaysa ceeb bay ka dhigaysaa waxay ku leedahay dumarka maxaa ilmaha iyaga kaliya mas'uuliyadooda saaray aawa raggii rag waa run raggii aaway waa su'aal muhiim oo meesha taalla ilaahay diintiisana waa ku sheegay dadka Soomaaliyeedna way og yihiin hooyo iyo aabba isku xaquuq maahan aabbu xaquuq buu leeyahay hooyaduna xaquuq bay leedahay ilmaha hooyada wax u dhaama male waa hooyo hadduu cunug u dhasho ayada baalka gelisa iyada af Soomaaliga barta iyada ninkii dhaqanka barta iyada waxaas oo dhan barta waa hooyo way uga naxariis badan tahay aabaha markasta marka maadaama habartu ay aabaha ka naxariis badan tahay cunugu hooyadu la jira xitaa wadamada gaalada aabba kaligiis cunug jiidanaya arki maysid midka riixaya hooyadii baa la socota adigu marka ma waxaad doonaysaa dhaqan cusub iyo xeer cusub inaad keento oo cunug garu halkaa jiido waa cunugay wajidi karo ceeb maaha laakiin habartiiba kalsooni ma qabto hooyo yeelaysa ma jirtaa odoogu banaanka cunugii hala aado oo ha riixo macnaha waa aabihii oo mas'uuliyadii uu qaadi karaa laakiin qalbiga hooyadu ama wax ku dhacaan bay isleedahay uma ogola intaas bay ceeb ka dhigaysaa gabadhaas balada u fiirso waxaa kaloo ceeb ka dhigaysaa dumarka furiinkooda batay qurbaha markii la yimaado saan idiin sheegay ragga qaar xun baa ku jira wadanka qurbaha markii la soo galay dadku say wadankii ku ahaayeen oo wadankii loogu dhigi jiray hebel waa xilo gube oo wadankii loogu dhigi jiray hebel waa dabeecad xun yahay ayay walaalay qurbahana sidii oo kale ku yahay haddii marka aad mid xun aragtid oo gabadhiisa furaya ee dilaya ee xumaynaya mid wanaagsan baa jira daad u fiirso waxay leedahay marka furinkii baa badan kuba naan baa jira isku ag duqoobay oo qurbaha jooga aduu afarta negative-ka markaa soo aruursane afarta positive-ka ku soo dar baasha dagaal haddaad ka dhigtid ku darso gabadhaas dood lama wadaagi kartid ayadu waxay rabto kaliya haddaad ka hadlin waa ku tuuraysaa waxaan rabaa marka xaasha warkeen ku dheeraada doori maaye war dumarka nagii baa teen social media waxyaalaha lagu hayo waa khiyaali waxa social media dadku ka sheegayaan run ma wada aha waa been waxaan inta daawatiin walaalayaalow qalbiga intaad gelisiin ha u qaadanina wax run leeyihiin islaantaas nolosha ku fashilantay iyo reerihiin ka duminin iyo ilmihiina iyo raggiina ku dirin ha dhagaysanina iska balooga xumaanta waxaa jirta xilliyo aan la faafi jirin oo aan la daawo jirin maanta waxa wanaagsan iyo wax xun baa la daawadaa dumarkanaga marka waxa kula dardaarmaya war gabdhaha naga yaatiin hooyooyinka naga yaatiin wax kastaad noo tiine ceeb la asture ceebaha keenin baraha bulshada oo baasha naga qariya oo dagaal iyo naga noqonin ma kala maarano maanta oran daaradu anaka duqayadnay duqaysid meel kale tagi meeno aad iyo aad baad maadsantiin gobonnimo gabdhaha Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed sidoo kale gobonnimo war idinkaas u dhan idinka wada walaalaah wada noolaadaan idin leeyahay aad iyo aad baad maadsantiin muuqaalkan ku soo gaaray shan farad iyo ala